xarunta tababarka iyo la talinta ee jaamacadda Armas iyo shirkadda Tilmaan Consulting waxay iska kaashanayaan daahfurka tababar heer sare ah oo ku saabsan barnaamijka Odoo Functional Training. Haddaba tababarkani waxa uu socon doonaa muddo kooban waxaana lagu dhigan doonaa Hadraawi Campus. sida oo kale tirada dad ee la qaadanaya aad ayay u kooban tahay casharada lagu dhigan doono tababarkan oo faahfaahsanna waxay idin doona tababaro warsame Jamaal. Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala rasuulillah. Magacaygu waa warsame Jamaal. Waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa tababar ay iska kaashanayaan jaamacadda Armas iyo xafiiska Tilmaan Consulting Firm. tababarkaas oo magaciisu yahay Odoo Functional Training. waxaan ku horeyn doonaa Odoo waa maxay? Odoo waa system ERP ah oo kamid ah systemyada adduunka laga isticmaalo worldwide. walibana ay u badan tahay wadamadan Middle East-ka, Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Qatar ay u badan yihiin. waqti xaadirkan aad moodo inuu ku soo fiday East Africa, guud ahaan Somaliland iyo Soomaaliya oo aad ugu soo fiday. Nairobi laftarkeedu aad ugu soo fiday. baahi fara badanna ay run ahaantii dadku qabaan. marka programkan Odoo 2005 baa la aasaasay. imikana waxa uu marayaa version 17. waana system run ahaantii organizationka ama company-ga oo dhan shaqaalihiisu ay wada isticmaalaan. mid walbaana qaybtii ay khusayso uu ka isticmaalayo. iibiye, xisaabiye, operations manager, maamulo guud, mulkiile, dhammaan shaqaalaha oo dhan baa wada isticmaalaya oo mid walba qaybtuu ka khusayso uu ka isticmaalaya. haddaba tababarkeenani wuxuu ku saabsanaan doonaa Odoo maadaama uu system aad u ballaaran yahay oo ay isticmaalaan 5 milyan dad ka badan waqti xaadirkan adduunka. waxaynu arki doonaa applications 5 application ah aynu si gaar ah tababarkan ugu qaadan doonaa. applicationka koowaad wuxuu noqon doonaa accounting-ka, waxa ku xigi doona purchase-ka, waxa ku xigi doona sales-ka, inventory-ga iyo POS-ka ama point of sale-ka. shanta application waxa loo yaqaanaa primary applications, waana shanta ugu muhiimsan ee kombaniyada 80% shaqaaluhu ka shaqeeyaan. adigu haddaad xisaabiye noqonayso, haddaad shirkad iibiye u noqonayso, haddaad shirkad operations-ka ka mid noqonayso, waa muhiim shanta application inaad familiar ku noqoto. marka shanta application buu tababarkeena ku saabsanaan doonaa. waxaanad arki doontaa runtii faahfaahin aad u ballaaran oo ku saabsan shanta program iyo application-keega. tababarkuna laba iskugu jiri doonaa in marka hore uu demonstration noqdo oo live presentation aad qaadataan iyo in sidoo kale la idin siiyo waqti aad ku samaysaan wixii aad aragteen. intaasaan ku soo gabagabaynayaa. aad baad mahadsantihiin.